haddaba si ay noogu suurto gasho hadafkaas qaran baarlamaanka sharafta leh waxaan ka codsanayaa in xilliga fasaxa bil ka mid ah weliba bisha hore oo soo horeysa labada bilood uu u huro qadiyadaas weyn ama dib u dhigto bishiisa haddii horistu ay dhib ku tahay xataa inuu dib u dhigto oo maxaan ku rahaa bishaas dib uga darsado fasaxiisa si dalku shuruucdii lagu hogaami lahaa oo doorasho qof iyo codar loo gaarsiin lahaa ay dalka uga dhaqan gasho sharci aan meeshan ka soo bixin ummadda Soomaaliyeed go'aana looguma gaari karo fursad ay go'aan ku gaartana ma helayso haddii kala dafowdo iyo isbarbaryaac iyo isqabqabsigii iyo wixii aan horey u soo naqiinay waaye waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryayaa inuu nagu garab galo dhammaanteen kamira dhalinta xilka aynu u dhaaranay dhammaanteen walaalayaal Soomaaliya inta aqalkan fadhida ayay maanta hiilo uga baahan tahay waxaad ugu hiilinaysana dan yaroo adiga maanta aad leedahay maaha mid yaroo nin aad raalli ka ahayn ama aad necab tahay oo leeyahay diidaysid ma aha jiilasha Soomaaliyeed ee maanta jooga meel kastoo ay ku nool yihiin iyo kuwa mustaqbalka imaan doona dhalan doona ee weli aanan dhalanin sida ay u noolaan doonaan ayaa ilaahay wuxuu fursad inoo siiyey dhammaanteen mustawa kasta aan mas'uuliyadda ka joognay inaan go'aamino go'aanka noocaasa go'aan aad iyo aad u fudud oo sahlan ma aha caadifadayaanayna qaadin carayaanayna qaadin maalinaan kala ra'yi duwanaanayaanayna qaadin waddadaas dheer oo masiirka ummadda aan fiirino waan guulaysanaynaa ilaahayna wuuna jecel yahay wuuna muujiyey markaan isku ummad noqonnay isku af noqonnay isku diin noqonnay isfahamkeenna aanan muxuu ahay uu si sahlan u yahay isku hab nololeed aan noqonnay oo aanan kala duwanayn nimca kulligeen nagu wada manaystay nimca ka weyn oo bini aadamka adduunyada ilaahay uu ku siilaa malaha waxaa intaa noo dheer dal barwaaqo ah oo wax kale iska daaya meesha uu ku yaallo keliya ay dhaqaale aan caadi ahayn ay tahay dahab ay tahay oo waxa gudihiisa dhulka hoostiisa ku jira aan la qiyaasi karin oo dhulka korkiisa inta saaran 9 milyan oo hektar oo beera ah laba webi roobabkooda leh ay joogaan 3,300 kilomitir oo xeeba leh qaaradda Afrika saddexda meelood ee malaayga ugu qaalisan kalluunka ugu qaalisan adduunka oo ku tarmo mid ka mid ah dalkeena iska leh labada kalena laba wadan Afrikaan ah inta kadib inaan baahi ugu sii dul noolaano waa cilad iyo ducfi annagu aan leenahay cilada iyo ducfiga noogu weyn inaanan caqli lahayn ma aha inaanan shaqaysanayn ma aha daara waa dhisan naqaana baabuur qurqurxan waa gada ognahay annagoo 34 sano dhibaataysnayn maanta dalalka Afrika ku yaal in badan oo kamid ah waa ka fiicannahay kursimada dhaqaalaha waa dheernahay magaaladeena haddii la dul maro iyo magaalooyin aan weligood dagaal sokeeye ka dhicin oo caasimada ah markaad dul marta farqi aan caadi ahayn magaaladeena yaad ka dareemay weliba muddooyinka sanooyinkan dambe sidaas daraaddeed siyaasadda waaye dabarka nagu xirane dabarka siyaasadda ee dalka ku xiran aan ka furno aad iyo aad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.